أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. fircoon wuu dadaalay guntiga ayuu dhiisha isaga dhigay faalalowyadii xilligaa noolaa ayuu isu wada keenay wuxuu u baqayaa boqortooyadiisa welina wuxuu rajo ka qabaa inuu muuse ka adkaado dacwadiisana uu madashaa ku maamuustiro hase ahaatee waxay ahayd riyo beena iyo habeenkii xalay ahaa oo tegey habaas kor u duulay qorraxda ma fadarayn karo taliya manaxa ahina maamuuska ay cadaaladdu leedahay sina hoos uguma dhigi karo madashii baa la isugu yimid muuse ayaa dadkii goobta isa soo tubay jeedaaliyey kolkaas baa waxa uga dhex muuqday kuwo badan oo falka ku tamcaaran iyagii intuu hadalka u jeediyey ayuu ku yidhi hoog iyo ba ayaa idin sugaaya haddii aydun eebba ku been abuurataan oo mucjisooyinka aydun sixir ku sheegtaan haddii aydnan si bareera fircoon ugu sheegin xaqa iyo elayska iftiinka badan haddii aydnan u kala qeexin waxa ay ku kala duwan yihiin falkiinna iyo mucjisooyinka aan anigu wataa haddii aydnan u kala soocin xaqdarradiinna iyo xaqa aan anigu muujin doono wuxuu tacabkiisu ba'ay hoogna u sugnaaday kiinii la dagaalanka xaqa ku dadaala xaqdarradana u garbeeya dhawaaq xaq ah oo dhegta faalalowyaasha toos ugu dhacay ayuu warkaas muuse ahaa daboolkii baadinimada ayay ka gelgisheen laabtoodana wuxuu ka saaray wixii shirqoolla ahaa oo ay isaga la maaganaayeen dacwadii xaqa ayay si dhab ah ugu nuglaadeen waddadii hanuunkuna hagaag bay ugu muuqatay amarkii fircoon ayay faalalowyaashii u hoggaansameen midkoodna madashii uu ugu yeedhay kama u maqnaan kumayaal bay tirada gaarayeen mid walbana xadhig iyo ul buu gacnaha ku sitay iyaga oo diyaarsan oo aad nin qura moodo ayay ku soo dhaqaaqeen goobtii lagu ballamay waxay u dan lahaayeen muuse iyo walaalkiis inay baqdin geliyaan dadweynaha daawashada u yimidna ay indhadaraandar ku ridaan qoladiisii ayuu fircoon qayre kula dhexdhacay wuxuu ugu yeedhay inay u soo degdegaan maalinta ciidda xafladda la qaban doono oo dhinacyada iska soo horjeedaa inta ay ku tartamaan ay ku kala hadhi doonaan waxaa goobtii soo buuxiyey dadweynihii oo ay la tahay faalalowyadu inay guulaysan doonaan waxay ahaayeen dad ay baadinimadu ku gaamurtay aqoondarraduna ay ku fiday sidaa darteedna ay saadaashoodu liidato iyaga oo kibirsan oo aqoontooda kalsooni dheeraada ku qaba ayay sixiroolayaashii soo taxaasheen oo maxay la kibri waayeen siday islahaayeen ragga goobta u hadhi doona ee la isku hadlaynayaa sow iyaga maaha fircoon bay ku yidhaahdeen abaalgud ma kugu leenahay haddii aannu arrintan ku guulaysanno suu wuxuu yidhi haah waxaan idin siin doonaa abaalgud waana la idinsoo dhowayn doonaa agtayda ayaad joogi doontaan sidii aad rabtaanna ugu raaxaysan doontaan barwaaqo iyo bashbash ayaan idin dhex gelin doonaa maxaa yeelay waxaad markaa tihiin raggii ii garbeeyey ee aan taakuladooda ku liibaanay kuna adkaaday sixiroolayaashii jawaabtaas way jeclaysteen wixii loo ballanqaaday ayay la madax wareereen kolkaasba iyaga oo degdegaya xagga muuse u soo jeesteen oo ku yidhaahdeen ma adiga ayaa ku hormaraya oo waxaaga tuuri doona mase annaga ayaa noqonna kuwa marka hore qarabkooda tuura isaga oo aan falkooda dan ka lahayn arrintoodana fududaysanaya ayuu u oggolaaday marka hore xargahooda iyo owlahooda inay iyagu tuuraan dantiisu waxay ahayd wax alla wixii aqoonsi xir ah oo ay kari karaan inay dibadda soo dhigaan dabadeedna uu eebba awooddiisa soo banbixiyo xaqana inta xaqdarrada ku dumiyo uu askaxda kaga dhigo faalalowyaashii ayaa dabadeed dhulka ku tuuray wixii ay gacnaha ku haysteen kolkaas bay muuse ula ekaadeen abeesooyin dulundulcaynaya oo kale naftiisa ayaa sidaa ismoodsiisay maxaa yeelay wuxuu ka cabsanayay dadweynuhu beentaas la dhoobdhoobay inay ku sirmaan diinta uu sidana ay sidaa kaga jeestaan markaas baa loo waxyooday waxaa hortaada ka muuqdaa yaanay muusow kula weynaan dhangadda yar ee aad sidato ayaa ka yaaba badan kana waxtaroon eebbe ayaa ku larane dhulka ku tuur rabbi idankii iyada ayaa liqi doonta dhammaan waxyaabaha beenta ah ee ay dhoobdhoobeene waxa ay sameeyeen faalalow shirqoolkiis weeyaan faalalowna weligiis ma liibaane waxyigaas ayuu muuse ku xasiray laabtuna ugu qabowday ushiisii ayuu dhulka ku tuuray kolkaas bay halhaleel waxay u dalamsatay giddii waxyaabihii beenta ahaa ee ay dadka maanka kaga xadeen sixiroolayaashii ayaa durbadiiba xaqii indhaha ku dhuftay hanuunkii iyo baadinimadii ayay kala garteen xaqii iyo xaqdarradii ayay kala ogaadeen wixii ay fali jireen ayay ka toobad keeneen mucjisadii ay arkeenna way la weynaatay markaas bay sujuud la wada dhaceen fircoon baa maalintaasna dhab u ciishooday oo camal guhaadooday waxa uu ka carooday arrinta lama filaankaa ee kiniisada ku noqotay xidigiisu inuu dhicid ku dhow yahay ayuu dareemay wuxuu filayay madasha la isugu yimid inuu isagu lib kala laaban doono oo awooddiisu ay ku adkaan doonto
ha yeeshee wuu mala khasaaray. indhihiisa ayuu ku arkay mucjiso uu la ashqaraaray, uguna muuqatay sidii duufaan xoog badan oo dhidibada u siibi doona boqortooyadiisa beenta iyo baadilka lagu alkumay. wuxuu fale ayuu garan waayey. jabka iyo ceebta la soo gudboonaaday inuu qariyo ayuu isku dayey. kolkaasuu sixiroolayaashii ku yidhi, ma aniga oo aan idiin oggolaan baydun muuse rumayseen, taladiisana madaxa u ruxdeen? hadduun baan wax ogaaday. shaki igama jiro arrintaana inay tahay mid awal hore la qorsheeyey oo idinka iyo isagu aad ku soo heshiiseen. dhabtii waa macallinkiinnii, waa kii idinku weynaa oo falkaba idin baray. waxaa maanta madasha ka dhacayna waa tashi aad wadartiinnu isku soo afgarateen. wixii aan idin faray ayaydun daba marteen, ballantii aan dhiganayna waad ka baxdeen. sababtaa darteed si isdhaaf ayaan gacnihiinna iyo lugihiinna u jarjari doonaa, geedaha timirta jirdahoodana waan idinka soo daldali doonaa. sidaas ayaan idin kadeedi doonaa, maxaa yeelay waad igu ballan furteen. barwaaqo wixii aan idin dabaalsiiyena waad dafirteen. awoodda aan leeyahay iyo xaddiga ballaaran ee caddibaadayda goor aan dheerayn ayaad arki doontaan. hase ahaatee raggaas mu'miniinta isu rogay goodigaasi wax saamayna kuma u yeelan. xoogga iimaankooda iyo ereyska nebinimada ayaa laabahooda adkeeyey. markaas buu eebba ka qaaday daboolka iyo mugdiga baadilka. tubtii toosnayd ee u muuqatay ayay ku mintideen. waxayna fircoon ku yidhaahdeen, waddada aad haysaa waddadii khayrka ma aha, raalligelintaadana abaalgud eebba nooguma jiro. ilayska noo baxay iyo xaqa noo muuqday adigana ha noqotee wax kale ku doorsan mayno. intii aad doonto goodi, weligaana noo dhaaro. waxaa tahay uun mid dadka baadinimo u horseeda. rabbigayo ayaannu rumaynay si uu nooga dhaafo dembiyadii aannu ku kacnay iyo falkii xumaa ee aad nagu qasabtay. isaga ayaa wax walba oo kale ka khayr badan oo ka jiritaan dambeeya. wuxuu fircoon la amankaagay mucjisadii muuse ee uu isagu falka ku sheegay. kolkaa ayaa mar qura waxaa naftiisa ku kulmay laba dareen oo aan la xakamayn karin. waxay ahaayeen sii jiridda boqortooyadiisa iyo muuse la dagaalankiisa oo uu dhab ugu dadaalo ilaa uu guulka gaaro. wax walibayna sida uu isagu rabo ay ku dambeeyaan. wuxuu ahaa nin madax adag oo dafiridda xaqa ku fogaaday. sidaa darteedna waxaa isaga oo kale laga filan karaa inuu si walba ugu mintido haysashada awooddii xaddiga weynayd ee gacmaha ugu jirtay iyo hantidii ballaareed ee uu lahaa. naf gaalnimadu ku gaamurtay ayuu ahaa. taas baana ku dirqiyaysay inuu u halgamo sidii uu uga adkaan lahaa ninkan isku soo dhereeriyey ee awooddiisa aqoonsan waayey. canaadkiisii ayuu ku adkaystay. madaxyaweyntii qoladiisa ayuu la tashaday. markaasba iyaguna ku guwaabiyeen inuu muuse iyo tolkiis wax ka qabto. haddii kale ay arlada hallayn doonaan, isagana ay ka jeensan doonaan. waxay ahayd tale uu u guuxay. maalintaa kadibna wuxuu aad u kordhiyey dulmigii uu dadka ku maamuli jiray. intuu ka badbadiyey ayuu soo saaray go'aan silloon oo naxariis darro oo idili ay ku dhan tahay. wuxuu yidhi, wixii lab ah oo qolada muuse u dhashaba waannu dili doonnaa, wixii dhadig ahna waannu iska dhaafi doonnaa. hoog iyo ba iyo gardarrooyin iyaga oo kale aan la arag ayuu ku falay. markaas bay xagga muuse u carareen si uu uga celiyo gaalkaas naxariistaba qalbigiisa laga siibay iyo dhibaatooyinkii uu u geysanayay. waxay ku yidhaahdeen, muusow, ka hor intii aanad noo imaan waannu dhibbanayn. hadda oo aad nala joogtana waannu dhibbannahay. nabadgelya korkiisa ha ahaatee rasuulkii eebbe ayaa dabadeed laabta u qaboojiyey oo u caqli celiyey. wahankii hayey ayuu kala direeray. wuxuuna ugu bishaareeyey wanaag iyo badbaado ku soo fool leh oo ay nasiib u yeelan doonaan. wuxuu ku waaniyey rabbi inay kaalmo weydiistaan, samirna u heshadaan. wuxuu u sheegay dhulka inuu eebbe leeyahay, ciddii uu doono uu isagu dhaxal siiyo, cidhibta dambana kuwa isaga ka cabsadaa ay yeelan doonaan. sidaas ayuu muuse yidhi, isaga oo aan marna ka hakan fidinta farriinta eebbe, kuna howlan habkii iyo hannaankii ay qoladiisu ku badbaadi lahayd. xagga rabbi ayuu u jeestay, isaga oo ku hubaysan niyad bir ah, iimaan aan dhaawacnayn iyo xasillooni buuxda. rag ka tirsan madaxyaweynta qoladiisa ayuu fircoonna la shiray. waxay ka tashanayeen sidii ay muuse u dili lahaayeen. kadib markii ay xeel iyo shirqool kasta ka quusteen, irdihii kale oo idilna ay ka soo oodmeen, ayay istuseen dilkiisu inuu yahay habka ugu fudud ee boqortooyadoodu ay ku badbaadi karayso. taladaas iyada ah, iyaga oo ka baaraandegaya sidii nebiga loo dili lahaana qaadaadhigaya, ayaa waxaa ka dhex kacay nin gobonnimo iyo geesinimoba la isugu daray. ninuu eebbe garaadkiisa ilayska hanuunka ku riday oo waddada iimaanka daboolka uga qaaday.
ninkaas ayaa si aan la arag oo aan la maqal muuse u daafacay, fircoon iyo madaxyaweyntana ugu muujiyey sida ay u habowsan yihiin ee ay ugu gabsan yihiin tashiga silloon ee ay isku raaceen. wuxuu ku ceebeeyey allahay waa alla nin ku dhawaaqay ulana yimid xujooyin cadcad oo uu rabbigood ka wato inay dil abaalmarin uga dhigaan. wuxuu ku yidhi haddii uu been sheegaayo isagay jirtaa, haddii uu run sheegise waxaa idin haleeli doona waxa uu idinkugu goodiyayo qaarkood. eebbana xaqa ma tuso ruux kasta oo xadgudba beenna badan. ninkaas oo la baxay muuminkii reer fircoon wuxuu haddana qoladiisa xusuusiyey awoodda eebbe iyo qabashadiisa aan cidina hor joogsan karin. wuxuu uga digay hoog la masa ah kii ummadihii hore ku dhacay, qoladii nuux, qoladii caad, qoladii samuud iyo kuwii ka dambeeyeyba. rabbi inuusan addoommada gardarro ku cadaabin kuna cadibin ayuu u sheegay. wuxuu ku cabsigeliyey dharaarta qiyaame ee cid iyaga eebbe ka celin kartaana aanay jirin. wuxuu kaloo xusuusiyey markaas ka hor nebi yuusuf inuu xujooyin cadcad ula yimid, ha yeeshee wixii uu u keenay ay ka shakiyeen, kolkuu geeriyoodayna ay ku andacoodeen isaga kadib eebbe inaanu rasuul dambe soo diri doonin. dood xaq ah oo dhidibba adag ku taagan ayay ahayd, ha yeeshee reer fircoon way ka santaageen oo gaashaanka u daruureen. waxayba isku dayeen inay qudhiisa soo duwadaan, toodana ay yeelsiiyaan. markaas buu wuxuu ku ceebeeyey isagu inuu iyaga badbaado la doonayo, iyaguna ay isaga cadaab ugu wacayaan. eebbe inaan ku gaaloobo, awooddiisana aan cid kale la wadaajiyo ayaad iigu baaqaysaan, aniguna rabbiga uunkiisa ka adag ee dembi dhaafka badan ayaan idinkugu yeerayaa, ayuu ku yidhi oo ugu caqli celiyey. wuxuu u sheegay dhabtii waxa aad iigu wacaysaani adduun iyo aakhira toona sal kuma laha. xagga eebbe ayaannu u noqon doonnaa, dad naareedkuna waa kuwa xadgudba. waxa aan hadda idin leeyahayna kol dambe ayaad xusuusan doontaan, aniguna arrintayda eebbe ayaan u bandhigayaa. eebbana waa eebbe addoommadiisa dhab u arka. ninkaas iyo hadalkiisa wanaagsanba way mashiiqsadeen. meel aysan filaynin ayuu kaga soo baxay, wuxuuna u muujiyey talada wacani sida ay uga lunsan tahay. way la coloobeen, doqonnimona way ku tilmaameen, inay dilaanna wayba isku dayeen. ha yeeshee eebbe weyne ayaa shirqoolkoodii ka badbaadiyey. reer fircoonna cadaab midka ugu daran ayaa ku dhacay. isaga oo goodiya dhaar aan midna dan ka lahayn kana baqaynin ayuu muuse fidinta dacwada eebbe wax walba u huray. fircoon ayuu ugu yeeray allihiis inuu rumeeyo, cirarka iyo dhulka eebbihii abuuray inuu u noqdo, reer israa'iilna intuu faraha ka qaado uu isaga ku daro. hase ahaatee taasi waxay ahayd arrin ku adag ninkaas qooqay ee naxariista laga siibay. markaas buu ka sii daray oo kibirkiisa kibir dhaafay. wuxuu meel ku soo urursaday koox habowsan oo qoladiisa ka mid ah, nolosha quursiga iyo addoonsigana qaayibay. koox uu doonayay inuu awooddiisa tuso, dabadeedna gaalnimada iyo dulligaba uu ku nageeyo. intuu kooxdaas isdhex taagay ayuu ku yidhi, tolow boqortooyada masar iyo webiga hoostayda dareeraya sow anigu ma lihi, miyaynaan wax arkayn? bal hadduu run sheegayo waa muuse, maxaa korkiisa qoolal dahab ah loogu soo daadin waaye? amase markii uu noo imaanayey malaa'igta iyo isagu maxay isu soo raaci waayeen? kooxihii uu hadalkaa u jeedinaya waxay ahaayeen kuwa ugu khayrka daran dadkii u telin jiray, kuwii baadinimada iyo gadarrada ku taageeri jiray, cududdana ugu ahaa. sidaa darteed madaxa ayay hadalkiisa u wada ruxeen, wax walbana way ku raaceen. waxay ahaayeen daacadda ee baduul ka baxay, ma harin hadal la is yidhaahdaa, useete dheerayn iyo dulqaad dambe oo fircoon loo yeeshaana dhammaade. wuu kibir dhaafay, qoraxda oo barqadii joogtana jiritaankeedii ayuu dafiray. ciqaabtii, dullayntii iyo quursigii uu reer israa'iil ku hayn jiray ayuu sii laban laabay. bac kastana wuu ku falay. maalintaas baa muuse la faray fircoon iyo qoladiisa inuu gaarsiiyo goodiga eebbe oo ah inuu cadaabtiisa dhadhansan doono, gaalnimadooda iyo dullaynta reer israa'iilna uu ka goyn doono. maalintaas bay ciqaabtii eebbe ku bilaabatay. hantidii, tarankii dadka iyo midhihiiba waa laga kala dhantaalay, waana laga aafeeyey. biyihii webiga niil ayaa guray, waxtarkiisiina wuu yaraaday. dhulkii markuu u waraabin waayey ayaa waxaa ka gabaabsiiyey dalaggii uga soo bixi jiray. baahi baa kolkaa la soo wada daristay. dabadeed roobaas cirka kaga yimid ayaa inta duufaan isu rogay ku dhuftay, kaas oo bar iyo beerba ka waxyeeleeyey. waxaa haddana ku degay ayax midhihii iyo ubaxiiba nag ka dhigay. misna waxaa lagu yaaciyey in jir jiif iyo nasiinaba ay ku waayeen. rah noloshii u dacareeyey ayaa haddana ooda looga soo qaaday,
kaas oo cuntadooda iyo cabbitaankoodaba uga hormaray, dharka kolba kii ay xirtaanna u dhexgeli jiray. sidoo kale waxaa lagu ciqaabay goror iyo dhiig samankooda mar walba ka hoora. xoolahoodii ayaa ugu dambaystii loo soo dhigtay oo rabbi eber ka dhigay, taas oo ah abaalmarin gaalnimadooda iyo dembiyadooda ay ku mutaysteen. kolkii uu cadaabkaasi xanuujiyey ayay muuse u tageen kana codsadeen inuu rabbigii u baryo si uu dhibaatada hayse uga faydo. waxay u ballan qaadeen dhibaatadaas haddii uu ka koriyo inay rumayn doonaan, reer israa'iilna ay ku dari doonaan. biladii ku habsatay ayuu eebbaweyne maalintaa ka qaaday. ha yeeshee ballantii ay nebiga la galeen way ka baxeen, sidaas bayna axdilaawayaal ku noqdeen.